dhinaca kalena deegaano ka tirsan gobolka Mudug ayaa iyana waxa ay wajahayaan xaalado biyo yari xilli maanta loo dabaaldegayay maalinta caalamiga ee biyaha adduunka. Wariyahayaga Baashi Cali Xaashi ayaa warkan gaalkacyo ka soo diray. iyadoo 22 Maarso adduunka laga xusayo maalinta biyaha adduunka ayaa deegaano ka tirsan gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya waxaa ka jira biyo la'aan baahsan. Shacabka ku nool deegaanada Bitaale, Jalable, Kala Sooc, Baraarciise, Bacadweyne iyo Xayro ayaa iminka walaac xoogan ka muujiyay biyo la'aan baahsan oo ka taagan deegaanadaas, taasoo saameyn xoogan ku yeelatay dadkii dunyada ku nool deegaanadaasi. Gudoomiyaasha deegaanada Bitaale, Jalable, Xayro iyo sidoo kale Bacadweyne ayaa sheegay in bulshada ku nool deegaanadaas ay wajahayaan xaalad biyo la'aaneed tii ugu darneed. haabankayda ma lihin matoorada dayactir oo boonkana ma lihin ceelashuna waa daqow matoorana sideedaba waa naga baabi'een matoorana waxaan codsanaynaa maantay ilaahay baa wax walba bixiyo laakiin maanta waxaan aad iyo aad codsanaynaa matooro iyo in loo dayactiro sidoo kale matoorkii Jalable wuu naga fadhiyaa dadkii waa ku baabay waa lagu aamay waa laga barakacay waxaan codsanaynaa dawladda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulada iyo hay'adaha waxaan codsanaynaa si degdeg dadkaas waqtiga oo kulul wixii lagu noolaa oo fariistay waxaan codsi u nahay in la ka soo gaaro 8 sano wax dayactir meeshan ma imaan hay'adna wax ma keenin meel kale wax ugu imaan mana ahan dadkan dad ay awood ahaan abaar bay soo mareen shidaalka xataa ma daboolan karaan waxaan xataa waliba galabta ku dari lahaa dadka mas'uuliyiinta wax garadka jooga galabtay sheebkooda dib hana ugu laabteen si ummadan loo badbaadiyo ayaan ku dari lahaa oo hana loo qaaraanto oo hana ku tala galay in xaaladayadu ay marayso meel dhibaataysan oo aan islaamnimada ku fiicnay wax biyo ka hor naf biyo ka horeysa ma jidho noloshiba ciriir nagu ah waa cadibanahay geed dheer iyo geed gaaban waxaan codsanaynaa meeshaas galabta dhibka ku jira muslim iyo gaalo wax allaalay waxa ka qaban kara inay soo gurmadaan baan codsanaynaa sidoo kale waxa ka jirta biyo yari markii hadda abaaru ay dhaceen waxa nagu dhaweyd biyo waxaan ka soo qaadi jirnay meesha la yiraahdo Guula oo noo jirta 70 kiiloomitir ama 80 kiiloomitir biyo noo sokeeya male waad arkaysiin baahida meeshaan taagan waa arkaysiin waxa ka taagan waa arkaysiin waa waqti wakaas waa ka waxa ooman iyo waxa halka taagan saakaariyihii waxa loo baxshaliyay meel kale beel arigaas iska wareegay bitaala loo baxshay bitaala ariyihii loo baxshay marka ariga bitaala loo baxshay maxaa qorraxdaas ka imaanay waxa ka imaanay baaba weey marka waxaan qabaa hay'adu talow inaan naga wargeysiin in aad beeshaasi inay ay balaysantahay yaabantahay inta badan gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada hoos yimaada dawlad goboleedka Galmudug waxaa ka jira cariiri dhanka biyaha ah iyadoo bulshada ku nool deegaanadaas ay helin biyo ku filan. Baashi Cali Xaashi, raadiyaha iyo TV-ga qaranka, Hoobiyo.